madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka taleefanka kula hadlay amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamiim bin Hamad. kulankan ayaa intii uu socday waxaa labada dhinac ay uga wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa maadaama uu u dhaxeeyo mid soo jireen ah lana adkeeyo. hogaamiyayaasha ayaa isdhaafsaday aragti ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee diblomaasiyadda caalamiga ah iyo tan gobolka iyo sidoo kale dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee hadda ka socda gobolada dalka. kulanka madaxweynaha iyo amiirka Qatar ayaa ku soo aadaya 2 maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay sagootisay safiirka Qatar u jooga Soomaaliya Hassan bin Hamza Hashim. dowladda Qatar ayaa sidoo kale Dr. Abdullahi Salim Nasir u soo magacawday safiirka cusub ee Qatar u fadhi doona Soomaaliya kaas oo dhawaan shaqo bilaabi doona. Qatar waxa ay kamid tahay dalalka Carabeed ee saameynta xoogan ku leh arrimaha siyaasadda Soomaaliya. dowladii hore ayayna si dhow ula shaqeeyeen waxaana taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isna safar aan la shaacin uu ku tagay dalkaasi si uu u soo celiyo taageeradii dowladda Qatar u fidin jirtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka federaalka ah ee Soomaaliya.